الرحيم وزير هوانك arrimaha qoyska iyo horumarinta qoyska gudoomiyaha gobolka bari xildhibaanada gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaasha haweenka degmada iyo gobolka ururada bulshada culimada odayaasha dhaqanka saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam maanta waxaan isugu nimi inaan furano kalfadhi aan caadi ahayn sida uu qabo dastuurka law number 7 qodobka 20aad farqadiisa 21 waxa tilmaamaya in 30 cisho gudahood lagu furo kalfadhiga maanta waxaan joognaa 17 beri marka laga soo bilaabo maalintii la doortay sida awgeed waxaan furanaynaa kalfadhiga aan caadi ahayn ee golaha deegaanka degmada Boosaaso sida awgeed waxaan codsanayaa golaha deegaanka ee sharafta leh ka codsanayaa in ay siino mandate-ka xogeyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso oo xogeyihii hore oo haddana shaqada sii waday inaanu si sax ah mandate-ka u siino mudane Cali Cawad waxaan xildhibaanada ka codsanayaa inay gacanta u taagaan Cali Cawad inta siisay mandate tirada soo gudub waxa ogolaaday oo siiyay codkooda 27 xubnood oo ka tirsan golaha ciidamada diiday waa mahadsantiin inta kadib waxaan guda galayaa khudbadayda golaha deegaanka ee degmada Boosaaso mudan iyo mulwooyin salaan kadib doorashadii ay doorateen kadib waxa aan xilka la wareegay 4 bishii 10aad 2015 waxaana guda galay shaqada howleedkii dawladda hoose ee Boosaaso aniga oo kuurgal sameeyay xaaladda shaqo tan baahiyeed iyo tan dhaqaale ee dawladda hoose mudan iyo mulwooyin maalmihii koobnaa ee aan xafiiska joogay waxaan qaaday talaabooyin horumar leh badankiina aad maqraanti ka ahaydeen kuwaas oo aan ka xusi karo dhagaxdhigii wadada weyn ee isku xirta dekeda iyo jidka Sodonka oo aan partner ku nahay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka taasoo hawsheedii ay bilaabanayso maanta banayntii wadooyinka dayactirka gaadiidkii dawladda hoose ee fadhiyay aan shaqaynayn muddo sida gaariga dabdamiska oo aan boorka ka jafnay haddana shaqaynaya gaari marketuwa oo aan dayactir ku sameynay haddana shaqo bilaabaya gaariga booyada ee dawladda hoose oo fadhiyay oo aan hadda start gareynay gaarigii qashinka qaadi jiray ee dawladda hoose oo aan hadda dib u nooleynay guriga dawladda hoose labada guri ee dawladda hoose ku shaqeyso oo dhamaantood bila korontada haddana korontadii soo celinay baabuurta shaqada wada oo aan hadda dayactir ku sameynay wadadii isku xiri jirtay hospitaalka gadaashiisa mari jirtay oo infaarada xirteen oo aanu dib u banaynay dhammaan hawlahaas waxaan guda galay muddadii 12 beri ayaan joogay sidoo kale waxaan dayactir ku sameynaynaa oo hadda bilowday xarunta dawladda hoose oo aan hadda bilownay annagoo isu xilqaanay waayo meesha ku shaqeynayna waa muraayadii Boosaaso waxaan rabnaa inay ka duwanaato sanadihii hore sidii ahayd waxa uu kuurgal ku sameeyay oo aan dabagalay oo aan isku dayay inaan sameeyo kordhin dakhliga dawladda hoose waxaana hadda uu marayaa meel wanaagsan waana ku sii daba jiri doonaa insha Allah taala mudan iyo mulwooyin waxa inoo yahay howlaha fara badan kuwaas oo u dhaxaad u horumarka dawladda hoose waxaana himiladaydu tahay waa inaan ka dhabayo waxqabadkii aan hortiina ka ballan qaaday inkastoo haygu qaadatay idinkana aad iigu riyaaqdeen iguna siiseen codkiina kalsoonida waxaan idinka codsanayaa maantana inaad ila shaqaysaan sidii iyo si ka badanba aad ila garab taagnaataan in shaqadiina waxaan nimi dawladda hoose oo Boosaaso
oo habacsanaan ka muuqato waxaanu hadda ku guda jirnaa oo howlihii dowladda hoose u socdaan si caadi ah waxaan uga mahadcelinayaa agaasimayaasha iyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose oo runtii niyad sami iyo soo dhaweyn nagula shaqeeyay dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan mahadcelinayaa xildhibaanada u heelan inay ka shaqeeyaan markasta horumarka magaalada Boosaaso iyagoo aan bidayn nafci laakiin ay garteen inay qaadeen mas'uuliyad wadareed oo inoo wada taal kulligeen mudanna inaan wada gudano aad iyo aad baa u mahadsantihiin ma dheeraynay khudbadda waxaan haddana ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Deedo